Okay, bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan sii wadaynaa cashirkeeni aan ku baranaynay Photoshopka la xiriiray tusaalayaasha sida loo isticmaalo Photoshopka. Okay, marka waxaan sameynaynaa ID cardki. Marka file baan tegaynaa. Halkan waxaan ku qoraynaa new aniri waxaan ku qoraynaa waxa la yiraahdo ID card aan ku qoraynaa. Halkan marka waxaan ka dhigaynaa 3.3 baan ka dhigaynaa bes halkan 2 baan ka dhigaynaa sida standardka waa sidaas. Inta kale waa iskaga mid 300 CMYK intaas waa ka dhigaynaa isku mid. Okay, marka okay baan dhahaynaa. inta markaan inaano background baan u sameynaynaa qaybta marka layer cusub baan sameysanaynaa. Okay, halkan marka waxaan bedelaynaa foregroundka. Matalan waxaan rabnaa tusaale ahaan ID cardkaan rabnaa oo kale mid lamid ah inaan sameyno ID cardkaas. marka sida loo sameeyo ID cardka hadda baan rabnaa in tusaalaan marka qaybta waxaan rabnaa inay vlog noqoto qaybta ugu sareysa vlog VB aan ka dhigaynaa sida macnaha kan inay ka muuqata qaybta sare waa cadaan inta ugu sareysa laakiin meesha ku xigta qaybtan ku xigta waxa weeye qaybtani waa vlog qaybta ku xigta marka qaybta ku xigta ayaan rabnaa vlogga marka xoogaa waxaan ka dhigaynaa halkan saas oo kale vloggaas ayaan ka dhigaynaa marka okay markaan ka dhigno marka sidayn hore soo baranay selectionkii ayaan isticmaalaynaa halka qaybta dhexe ayaan maaragtay inta ugu sareysa inuu cadaan noqdo baan rabnaa qaybtaas marka baan ka dhigaynaa waxaan soo qaadanaynaa G baan tegaynaa ama gradient marka paint bucket baan soo qaadanaynaa. Okay, dhag baan siinaynaa. Inta markaan siino control plus D baan dhahaynaa seen hore soo baranay marka control plus T baan leenahay. Okay, halkan marka switch baan ku dhifanaynaa. Okay, markaan ku dhifano marka waxaan sameynaynaa qaybta dhexe halkan pointigaas iyadaasaan qabanaynaa. Pointiska markaan qabano xoogaa hoos soo dhig ayaan sameynaynaa marka exactly waqti bay u baahan tahay in lagu bixiyo laakiin macnaha soo dhaweynayno aan rabnaa inaan soo dhaweyno. Okay, waa marka okay enter baan dhahaynaa. Okay, enter markaan haddana leave layer baan sameysanaynaa. waxaan soo qaadanaynaa qaybtan marka hoose waxa waa vlog tiqaweeye qayb dhexe baa jidha laakiin oo marka waqtiga nooma saamaxay marka inaga laba qaybood kaliya aan ka dhiganaynaa qaybta marka ugu hooseysa sidaad aragtaan waa vlog xoogaa tiq u dhow marka halkan waa vlogga noocaas oo kale ah. Okay, marka sidoo kale selectionkii baan marka soo qaadanay selection toolkii. Okay, marka sorry control plus D aan ka soo fogeyno wali control plus D ma dhawin xoogaa marka hoos uga degno. Okay, markaas ta soo qaadano B baan tahay G gradient baan soo qaadanaynaa click baan siinaynaa. Okay, sidaad aragtaan marka control plus D baan dhahaynaa kadibna control plus T baan dhahaynaa. Okay, waxaan ku dhifanaynaa halkan marka si ay maaragtay aan hoos ugu dhigno qaybtan kan kor u qaad. Okay, markaasaan nahno. Okay, enter baan dhahaynaa. Okay, marka halka dhexe marka waxaan rabnaa halkan inaan sawirkii soo dhigno. marka sawirka intaan soo dhigin waxaan isticmaalaynaa shape sawirka baan u sameynaynaa aan hadhow gudihiisa gelino. halkan marka shape baa ka dooranaysaa shape-ka wuxuu noqonayaa marka halkaan tagaysaa waxaan ka dhigaysaa waxa la yiraahdaa ellipse tool ayaan soo qaadanaynaa ellipse tool. ayaa soo dhexaysaa marka enter baa dhexaysaa control plus T baa dhexaysaa ama move toolka baa soo qaadanaysaa labada midka doonto meesha rabtay baa dhigaysaa. Okay, marka waxa weeye marka
markaad soo dhigto marka waxaan soo qaadanaynaa marka sawirkii file baa tegaysaa place baa dhacaysa. okay marka sawirkii soo qaado aad rabtay inaad ku dhex rido matalan sawirkan oo kale ayaa rabtaa inaad dhex geliso. okay marka place baa dhacaysa. okay sawirkii saad aragtaan wuu weynaanayaa marka waa soo yaraynaysaa waa qaadaysaa marka sawirkii waxaad geynaysaa okay enter baa dhacaysa sawirka. okay marka sawirka si uu u dhex galo baa rabtaa waxa la shape-kii right click baa ku leedahay waxa leedahay create clear mask baa leedahay waa ka marka waa dhex galay sawirkii. okay sidaas ayaa marka sawirkii u dhex gelinay markaan sawirkii dhex gelinay marka okay waxa hadda inoo haray marka oo qodobka ugu dambeeyay weeye inaan qoraalkii ku sameeyno. marka halkan toolkii baan soo qaadanaynaa qaybta ugu sareysa halkan marka waxa ku qoraysaa company name-ka ayaa ku qoraysa shirkadda qofka aad u sameynayso ID card-ka macnaha company-ga uu shaqeeyo. halkan ka hooseysa halkan enter waan haynaa halkaas size-ka waa yaraynaynaa. waxa ku qoraysa waxa la yiraahdaa slogan farta ayaa bedelaysa slogan way slogan-ku waxa way astaanta ay leedahay matalan tusaale ahaan tii hadaayo kale the best choice ayaa ku qoraysa halka. okay enter baa dhacaysa halkan marka waxa ku qoraysa ugu horeynay marka halka dhexe centerka tag waxaad halkan farta marka aan bedelo karka cadaan baa ka dhigaynaa farta waxa weeye marka halka waxa ku qoraysaa magacii qofka matalan Geedi Faarax qofka magaciisi enter baa dhacaysaa waxa ku xigaya waxa la yiraahdaa job title matalan waa designer shaqadiisii. halka marka waxa ku xigi doona marka waxa ku xigaya waxa la yiraahdaa ID number-kii ID-giisi matalan waxa ka soo qaada RFRT00 saas oo kaleeto. waxa ku xigaya telefoonkiisa telka matalan 0 sidaas. okay waxa ku xigaya waxa la yiraahdo job ID-gii waxa ku xigaya location-ka macnaha matalan meesha uu degan yahay location Boosaaso ayuu degan yahay sidaas ayaa marka ID card-kii oo dhameystiran aad ku samaysay. intaas ayaa casharkii marka ID card-kana uu inoo ku dhamaaday. marka la socod wanaagsan casharka hal cashar